hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee lagu magacaabo Human Rights Watch ayaa sheegtay in maamulka Falastiiniyiinta ee ka taliya daanta galbeed ee la haysto iyo waliba maamulka Xamaas ee ka taliya marinka Gaza ay labadooduba si joogto ah u xidhaan oo u jirdilaan dadka mucaaradka ku ah iyo waliba kuwa sida nabdoon u dhaliila siyaasadahooda. warbixintan ay hay-addu soo saartay oo ay ku saleysay wareysiyo ay ka qaaday maxaabiis hore ayaa waxaa lagu sheegay in labada dhinac ee loolanku uu ka dhaxeeyo ay samaysteen nidaam ay dadka mucaaradka ku ciqaabayaan. warbixintu waxa ay sheegtay in ciidamada nabadgelyadu ay badanaa u hanjabaan isla markaana cayriyaan oo garaacaan oo ay waliba maxaabiista u xidhaan siyaabo xanuun badan. maamulka Falastiiniyiinta iyo Xamaas labaduba way beeniyeen eedeymahaas. maamulka Falastiiniyiinta waxa si ku meel gaar ah loogu dhisay magaalooyinka waaweyn ee Falastiiniyiinta ee ku yaala daanta galbeed iyo Gaza 25 sano ka hor markii ay Falastiiniyiintu heshiiska la galeen dawladda Israa'iil. ilaa iyo haatan waxa uu gacanta ku hayaa maamulka arrimaha Falastiiniyiinta ku dhaqan daanta galbeed. laakiin xoogagga daacadda ah madaxweyne Maxamuud Cabbaas iyo ururka Fatah ayay gacantooda ka baxday magaalada Gaza oo waxa ay u gacan gashay ururka Xamaas sanadku markuu ahaa 2007 markii ururka mintidka Islaamiga ah uu ku guuleystay doorashadii baarlamaanka Falastiiniyiinta. labada urur ee Xamaas iyo Fatah ayaa hore u sheegay inay heshiis wada galeen kaasoo lagu soo afjarayay baa la yidhi khilaaf muddo 10 sanadood ah taagnaa. Xamaas oo maamusha marinka Gaza ayaa sheegtay in faahfaahinta heshiiska la baahin doono galinka dambe ee Khamiista beriya. dawladda waddanka Masar ayaa labadan garab ku dhexdhexaadinaysa wada hadallo ka dhacay magaalada Qaahira. Falastiiniyiinta ku kala nool marinka Gaza iyo daanta galbeed ayaa la kala maamulayay tan iyo markii labadaasi kooxood ay dagaalameen 2007. warbaahinta taageerta ururkaasi Xamaas ee Falastiiniyiinta ee lagu magacaabo HBIS ayaa shaacisay go'aankan, waxaana ay intaasi ku dartay in faahfaahinta lagu sheegi doono shir shiraayad oo maanta oo Arbaca duurnimada ka dhacaya magaalada Qaahira. Sami Abu Suhri oo ah hafayeen u hadlay ururkaasi Xamaas ayaa waxa uu sheegay inay u muuqdeen kuwa ay ka go'naansho ka muuqato qoto dheer. ra'iisul wasaaraha Rami Hamdallah ayaa markaas kadibna safar naadir ah ku tagay magaalada Qaahira ee caasimadda waddanka Masar. dawladaha Israa'iil, Mareykanka, Midowga Yurub, Britain iyo quwado kaleba waxa ay argagixiso u aqoonsadeen guud ahaan Xamaas iyo garabyadeeda kala duwan. Saciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star, Burco.